cidna khasab gudoomiye ugu ma ahan karta baarlamaanka gudoomiye doorta hadduu rabana waa ridaa marka gudoomiyaha haddii markii hore la doorto cod la siiyo marka dambe codka khasab kuma haysan kare baarlamaanku haddii codka kala noqdaan waa inuu gudoomiyenimada ka tagaa mana aha gudoomiyihii ugu horreeya codka lagala noqdo codadka xildhibaankuna waa muhiim xukuumadda waxaa laga doonayaa inay ammaanka baarlamaanka adkayso wax hub la soo geli kara baarlamaanka waxaan moodnay dalka inuu hagaagay waxaan moodnay in daacad ay jirto dastuur iyo shaqaynaya xeer hoosaad waxaan aragnay in xildhibaano koox yar ah ay rabaan inay haystaan baarlamaankii Soomaaliyeed oo hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad Mahad Cawad aad baan ugu xumahay codkaygan ku doortay labada gudoomiye waxaana doonayaa sharci inaan u maro inaan haddana cod aan kaga baxo madaxweynihii aan rabitaankooda ku soo dooranay inuu raali ka yahay qalalaasahan socdo in ciidamadii Soomaaliyeed oo loo tababaray inay la dagaalamaan nabadiidka ay soo weerareen xaruntii golaha shacabka wasiiradii aan shaqada u ansixino oo aan kalsoonida siinay inay baarlamaanka shaqo ka dhigteen wasiirkii amniga uu joogo wasiirkii maaliyadii uu joogo uu taliyaashii ciidankii oo dhammaystiran kii booliiska kii nabad sugidda kii asluubta kulligooda ay maanta u soo shaqo tageen baarlamaankii oo shaqooyinkii kale oo loo idmaday ay iska soo daayeen annaga noo soo jeesteen ayaan aad uga xunnahay hadday tira xildhibaanaha ku filan ay haystaan uma diidanin mooshinkooda inay keensadaan sanduuq loo dhigo loo ogolaado xildhibaanadu fikirkooda inay dhiibtaan gudoomiye Jawaari haddii 184 xildhibaan oo ka codayda la helo waxaan ka qabnaa lama arko gudoomiye kala dooranayna haddii 184 xildhibaan oo riddo ay waayaan waxa la rabaa sharciga inay inta u hoggaansamaan ogolaadaan dalka nidaamka lagu wada jooga dalkan xukun militariya soo maray burbur iyo dagaal sokeeya soo mareen maxaakiim iyo urur argagixisa iskaga dambeeyay iyo faragelin ciidamada Itoobiya dalkan ay ku sameeyday dalkan waxa lagu wada joogaa nidaam noo qoran oo Soomaalidu ay ku heshiid